dhagax dhigaya bilowga ceelbiyoodkan riigga ah ee uu yeelanayo deegaanka Xamxama oo ah deegaan ay ku xeeran yihiin reer guura iyo xoolo dhaqato kala duwan oo ay biyuhu ahaayeen baahidooda koowaad. waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Puntland, maareeyaha wakaaladda horumarinta biyaha Puntland, xogayaha dowladda hoose ee degmada Garowe, odayaasha deegaanka iyo waxgarad kala duwan oo wada jira. xogayaha dowladda hoose ee degmada Garowe, Cabdalla Maxamed Cabdalla Kaylaco, ayaa farxad ku tilmaamay bilowga ceelkan bulshada deegaanka Xamxamaana u diray fariin iyo dardaaranno wada jira. waxaan rabnaa marka dadka tuulada iyo ceelku inay kala saarsan yihiin. halkan waxaa weeye ceelka biyaha, xoolaha ka cabaya, magaalada biyaha looga jiidaya, booyadaha biyaha ka dhaaminaya, magaalo ciddii rabtana tuulada aadaysaa. buushashna lagama agdhisi karo, lamana soo agdegi karo, dhulkiisana lama xirmaysan karo. Maxamed Cabdiqaadir Maxamed, maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta biyaha Puntland, oo ka hadlayay dhagax dhigga ceelbiyoodkan, ayaa dhankiisa tilmaamay in dowladdu ay dadaal badan ku bixisay helitaanka ceelkan oo ay baahidiisu taagnayd, siina raaciyeen ceelkani daafur u noqonayo ceelal kala duwan oo laga hirgelinayo deegaanada Puntland ee ay ka jiraan baahiyaha biyuhu. iyo waxgaradka iyo odayaasha reer Xamxama ee maanta ka soo qayb galay xafladan qiimaha weyn leh oo ah runtii wax aad iyo aad maanta inoogu muhiim ah kulliyan. waa dareemaysaan dhammaantiin waxaan u maleynayaa halkan hawd baa halkan ka bilowda. dhulka ugu oonka badan oo haraadka ugu badan ka jirana waa hawd. waana garan kartaan hadda wax yar markii 60 kilomitir la yiraahdo inta la soconayo waa 3 saacadood 4 saacadood. hooyada halka biyaha ka soo qaadaysa dabcan nugaal waa dareemi karaan intay ku imaanayso iyo waqtigaas. marka ceelkan insha Allah wuxuu noo yahay ceel istiraatiijig ah oo muhiim ah. waxaana dowladda Puntland ugu fadhiyaa qiimo weyn. waxaana la qodayaa sida la idin sheegay 380 mitir. wuxuu wataa qalabkiisii oo dhan, haamihiisii, meeshii xooluhu ka cabayeen, geela iyo arigaba. sidoo kale magaalada loo jiidaya waa la geynayaa. ceelkan insha Allah qalabkiisa, solarkiisa iyo motorkiisa iyo dhammaan si hybrid ah uu shaqeynayaa ankii kharashkiisa loo yareeyo oo solar ah. marka wax weyn bay kaga maarmaysaa bulshada deegaanku. gudoomiyaha deegaanka Xamxama ayaa ka mahad celiyay cid walba oo ka soo shaqeysay bilowga ceelbiyoodkan, xusayna in baahidooda koowaad ay ahayd biyaha. baahida aan u qabnay ceelkan biyaha lama koobi karo, iyo sidaanu ugu faraxsanahay wax la koobi karo maahan. biyaha waxaanu ka doonaynay 100 adigu ma dhammaan nugaal. adigu nugaal waa dareemaysaan. meeshaan joogno waa degmada Xamxama wey. meeshaanu ka doonan jirnayna waa nugaal. inta ay isu jiraan waa dareemaysaan. maanta haddii ay noo joogaanin ceelkii dusheeda uu taagan yahay, farxadayada lama koobi karo. gabagabadiina agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Puntland, Axmed Jaamac Jawle, ayaa ugu bishaareeyay dadka deegaankani in baahidoodii dowladdu ay ka jawaabtay. dadka deegaankana kula dardaarmay inay muujiyaan lahaansho iyo daryeel wada jira. ceelka insha Allah waxaan rajaynaynaa in laga biyo gaaro. haddii laga biyo gaarana maamul adag loo sameeyo haddii alla idmo, lana ilaaliyo. waayo dadku waxa danta guuda badana ma daryeelaan, waxa danta gaarka bay daryeelaan. wax in la helaa waa fududahay, laakiin in lagu furo adeegaaba ka muhiimsan waxa la helayo. furo adeeg baa loo baahan doonaa insha Allah. dadka deegaankana waxaan ugu bishaareynayaa in maaragta maanta uu ceelkii diyaar yahay insha Allah. mar dhowna biyihiisii la heli doono. adinkana waxaa la idinka rabaa deegaan ahaan iyo bulsho ahaanba inaad si wada jira uga faa'iidaysataan, u nidaamsataan maaragta inta ka hadhay. riigga kambaniga iska leh oo shaqada wada wuxuu u baahan yahay 3 shay in lagala shaqeeyo: nabadgelyada, deegaanka wuxuu ku joogi lahaa xoolihiisa intuu shaqeynayo inaad xoolo u keentaan oo aad garab istaagtaan. wixii kale oo caawimaad idinka baahdana inaad garab istaagtaan. haddaad tidhaahdaan hay'ad baa qandaraas ku siisay oo u dhaqaaqi mayno, hadda idinka idinka sharan tahay ogaada. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.